sirdoonka Israa'iil waxa ay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan Xamaas waxaana u fududeeyay laba basaas oo Falastiiniyiin ah Maxamuud Mabxuux nin laf dhuungasho ku noqday Israa'iil kaas oo harsi iyo hoyaad u diiday balse ugu dambeyn ay u adeegsadeen jawaasiis Falastiiniyiin ah oo markii dambe fududeeyay xogtiisa ilaa uu ku dhaco gacanta Mossad lagana taqaluso waliba si foolxun ay u dilaan maanta waxaan kula wadaagayaa qaabkii loo dilay loona qaarijiyay waana dilkii ugu farsamaysnaa uguna weynaa ee koox sirdoon ah ay geysato taariikhda inta la ogyahay sida dilkiisa loo qorsheeyay qaabka uu u dhacay iyo sidoo kale sida farsamaysneed ee loo qaarijiyay haddaba maanta xogtaas oo dhammaystiran ayaan kula wadaagayaa waana hubaa inaad la yaabi doonto 20 January sanadku markuu ahaa 2010 abbaaro duhurnimadii nin ayaa yimid qolka 230 ee hotelka Al-Bustan Rotana ee magaalada Dubai si uu ula kulmo saaxiibkiis kadib markii ay ku ballameen in xilligaasi uu yimaado markii uu yimid waxa uu arkay in iridda lagu dhijiyay kaarka hay dhibin oo ah qofku inuu mashquulsan yahay oo kale ninkii waa uu la yaabay maadaama saaxiibkiis uu ballan la lahaa uusan ka mid ahayn dadka ballanta jabiya waxa uu bilaabay inuu garaaco albaabka balse cidna kama jawaabin markaas ayuu u yeeray shaqaale hotelka kamid ah si uu ugu furo albaabka markii uu uga warramo waxa dhacay ayaa ninkii shaqaalaha ahaa furay albaabka isagoo isticmaalaya furaha guud laakiin markii ay galeen qolka labaduba waxa ay la kulmeen filwa ninkii uu raadinayay waa mayd waxa uu dhex yaallaa qolka isla markiiba waxa ay la xiriireen laamaha ammaanka ee hotelka iyo booliska Dubai markii ay yimaadeen boolisku waxa ay horay u soo wateen dhakhtar baaritaankii ayaa horay laga bilaabay dhakhtarkuna ugu dambeyn waxa uu sheegay in dhimashadu ay tahay mid dabiici ah laakiin wax yar kadib xaaladdu waa isbedeshay oo dhiilo weyn ayaa soo yeertay waxaana soo baxay tuhun ah ninka dilkiisu inuu yahay mid la qorsheeyay sababtoo ah booliska Dubai waxa ay ogaadeen ninka dhintay inuu ahaa qofkii ay ugu raadinta badnaayeen sirdoonka Yuhuudda ee Mossad tan iyo 1987 Maxamuud Cabdurrauf Maxamed Al-Mabxuux waxa uu ka dhashay qoys Falastiini ah oo ka soo haajiray koonfurta Gaza kuna noolaa xeryaha Jabaliya ee waqooyiga waxa uu ahaa qofkii shanaad ee carruurta qoyska oo ahaa 16 carruur ah markii uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu helay shahaado farsamo oo diblooma ah oo ah makaaniga gawaarida waxa uu furtay garaash uu ku hagaajin jiray baabuurta waxa lagu yaqaanay jirdhis isagoo ku guuleystay tartamo isla markaana kaalinta koowaad ka galay Gaza sanadihii 1983 ayuu guursaday wuxuuna dhalay 4 carruur ah Maxamuud intuu yaraa wuxuu indhaha ku kala qaaday xaqiiqada foosha xun iyo sida Yuhuuddu ay ula dhaqmayaan Falastiiniyiinta iyo dhulkooda markii uu 18 sano jirsaday ayuu ku biiray halganka hubeysan taasoo keentay in Yuhuuddu ay dhowr jeer xiraan markii ugu dambeysay waxay ahayd 1986 isagoo lagu eedeeyay inuu hub ku haysto gurigiisa iyo inuu xubin ka ahaa halganka laakiin sanad kadib ayuu ka baxay xabsiga iyadoo ay bilowdeen kacdoonkii 1987 oo loo yaqaanay Intifada wuxuu si dhow ula shaqeeyay Sheekh Ahmed Yunis asaasihii Xamaas iyo Sheekh Saalax Shahaade asaasihii garabka military ee Xamaas waxay siiyeen xil muhiim ah iyo inuu dhiso cutubka lagu magacaabo 101 oo ujeedadiisu ahayd inay afduubtaan askarta Yuhuudda si loogu bedelo maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Yuhuudda howlgalkii ugu horeeyay ee cutubkan waxa ay bilaabeen 1988 waxaana fuliyay Maxamuud laftigiisa iyo laba kale waxay afduubteen 2 askari oo Yuhuud ah oo ay si gaar ah u qabteen kadibna way dileen waxayna ku aaseen meel qarsoodi ah dabcan Yuhuuddu way ka war heleen arrinta askarta la afduubtay laakiin muddo dheer ayay raadinayeen cidda ka dambeysay ilaa 1997 ay ogaadeen in Maxamuud iyo kooxdiisu ay ka dambeeyeen Yuhuuddu markii ogaadeen inay ka dambeeyeen Maxamuud iyo kooxdiisu dilka 2 askari waxay bilaabeen dabagal inay soo qabtaan waxay ogaadeen goobtii uu ka shaqeynayay iyo halka uu deganaa waxay dhowr jeer isku dayeen inay afduubtaan ama dilaan laakiin dhammaan isku dayadii way ku guuldareysteen hal mar waxa ay weerar ku qaadeen garaashkiisa laakiin waxa ay dhaawaceen walaalkiisa isna waa uu ka badbaaday markii ay sidaa dhacday Maxamuud iyo saaxiibadiisa waxa ay fahmeen inay noqdeen bartilmaam rasmi ah oo aan laga hareynin markaas ayay u fakadeen dhinaca Masar laakiin ciidamada ammaanka Masar ayaa xiray waxaana markiiba warkan uu gaaray Yuhuudda waxayna weydiisteen Masar in loo soo gacan geliyo Maxamuud iyo saaxiibadiis balse Masar ma aysan ogolaanin intaas kadibna waa la sii daayay isaga iyo saaxiibadiisa waxayna u safreen Liibiya
kadibna waxay uga gudbeen Suuriya, halkaas ayuuna ka dhigtay saldhig. Haddaba waxaa halkan ka taagan laba su'aalood: yaa u sheegay Yuhuudda in Maxamuud iyo kooxdiisu ay dileen labada askari, yaase u sheegay in Maxamuud lagu xiray Masar? Sida sheekadu u socoto, su'aashu waxay u baahan yihiin baaritaan, laakiin natiijada ugu dambeysa waxay ahayd in Maxamuud uu noqday ninka lambarka koowaad ee ciidamada Yuhuuddu ay doonayeen. Sababtuna waxay ahayd Maxamuud waxa uu noqday mas'uulka ugu sarreeya ee keena hubka gudaha Gaza una gudbiya ururka Xamaas. Wuxuu heshiisyo la geli jiray dowladda Iiraan iyo kuwo kale, wuxuuna si qarsoodi ah ugu soo dhoofsan jiray hub Suudaan iyo Masar. Ma ahayn oo keli ah inuu dilay askari Yuhuud ah, balse wuxuu noqday xiriiriye istiraatiiji ah oo halis ku ah amniga Israa'iil. Yuhuuddu waxay ogaadeen in mid ka mid ah shixnadaha hubka uu waday la marsiinayo Suudaan, waxayna u geysteen duqeyn waxayna burburiyeen hubkii uu watay Maxamuud. Sidaa darteed waxa ay go'aansadeen in la khaarijiyo Maxamuud isaga oo dhanba, iyadoo warar badan ay sheegayaan in hay'adaha sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay bixisay abaalmarin dhan $2 milyan qofkii keena xog sax ah oo ku saabsan halka uu ku sugan yahay Maxamuud Mabxuux. Waxa uu ku fiicnaa inuu isqariyo isna badbedelo si uu uga badbaado la socodka Mossad, waxaana si aad ah loo raadinayay Mabxuux ilaa ugu dambeyn ay ka helaan Dubai sanadku markuu ahaa 2010. Safarkiisa wuxuu ku socday qorshe cusub oo ku saabsan sidii hubka loo geyn lahaa Gaza kadib markii laga xiray marinadii dhulka ee soo mari jiray dalka Masar. Maxamuud waxa uu safaro badan ku tagi jiray Imaaraadka isagoo iska dhigayay inuu yahay ganacsade caalami ah. Imaaraadku waa meel si fudud ay u yimaadaan ganacsatada, waxaana halkaasi kula kulmi jiray wakiilo ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan si aysan dadku u dareemin wax shaki ah. Intaas waxaa dheer, Maxamuud mar walba wuxuu isticmaali jiray baasaboor aan lagu qorin magaciisa dhabta ah, wuxuuna mar walba watay ilaaladiisa gaarka ah. Laakiin safarkaasi ugu dambeeyay ee Dubai ma uusan wadan wax ilaalo ah. Markaas ayay Mossad heshay xog sheegaysa in Maxamuud uu ka dhoofiyo Suuriya kuna wajahan yahay Dubai 19 Janaayo 2010 xilli galabnimo ah. Kadib baaritaano ay sameeyeen booliska Dubai, waxa ay sheegeen in xogta la siiyay Mossad ay bixiyeen 2 nin oo Falastiiniyiin ah. Magacyadooda lama shaacin, laakiin boolisku waxa uu caddeeyay in raggaasi aan lagu matali karin ama aysan matali karin dhammaan shacabka Falastiin, oo aysan ahayn dad xun sida labadaasi nin oo kale. Markii xogtaasi la helay, Mossad waxa ay bilaabeen howlgal ballaaran oo ay ku doonayeen inay ku beegsadaan Maxamuud, waxayna u qorsheeyeen sida duulaan cutub militari oo dhammaystiran, sababtoo ah in ka badan 27 qof oo rag iyo dumar ah ayay u tababareen kana kala yimaaday dalal badan. Mid walba waxaa loo xil saaray shaqo gaar ah. Howlgalkan lagu dilay Maxamuud waxaa lagu magac daray howlgalka Plasma Screen, si aysan u fahmin cidda ka shaki lahayd haddii ay maqlaan wicitaan ama wada sheekaysi taleefan ah. Howlgalku waxa uu si rasmi ah u bilowday 18 Janaayo 2010 xilli hore oo subax ah, markaasoo xubno ka tirsan kooxda ay yimaadeen garoonka diyaaradaha ee Dubai, waxayna ahaayeen 12 ka socda Britain, 6 ka socota Ireland, 4 ka socota Australia, 4 ka socota Faransa iyo 1 ka socda Jarmalka. Laakiin dhammaantood hal mar ma aysan imaan. 22 qof ayaa yimid subaxii, 3 qofna saacad kadib ayay yimaadeen, halka 2 kale ay yimaadeen fiidkii, saacaddu markay ahayd 8:15 habeenimo. Labadaasi ayaa muhiim ahaa, Jill Bollard iyo Kevin Fron. 20 daqiiqo kadib waxaa yimid ninkii kooxda hogaaminayay oo la oran jiray Peter Elfinger. 3 qof waa kuwa la doonayo in si gaar ah loo xasuusto. Peter waxa uu la kulmay kooxda muddo 1 daqiiqo ah, markaas ayay kala firdheen, mid walbana waxa uu aaday goobtii loogu talagalay. Qorshuhu wuxuu ahaa in kooxda la kala qaybiyo. Qaar waxay gareen hoteelada kala duwan oo laga yaabo in Maxamuud uu degi karo, qaar waxay istaageen garoomada diyaaradaha si ay ula socdaan Maxamuud markii uu yimaado, qaar waxa ay ku sugayeen meelaha laga filan karo inuu tago si ay u arkaan. Peter laftiisu waxa uu degay hotel gooni ah, laakiin kuma uusan nagaanin oo marba hotel ayuu degayay, wuxuuna isbedel joogto ah ku sameynayay muuqiisa. Mar timo macmal ah ayuu xiranayay, marna uu iska saarayay si aysan cidna ula socon dhaqdhaqaaqiisa, iyo si uu uga qariyo wejigiisa kaamiradaha. Galabnimadii 19 Janaayo saacadda markii ahayd 1:15 duhurnimo, Maxamuud waxa uu gaaray garoonka diyaaradaha Dubai. Indhihii kooxda Mossad waxa ay si fudud u garteen wejigiisa. Markuu ka soo baxay, wuxuu raacay taksi. Kooxdii ka dambeysana waxay raaceen gaari kale oo daba socday si ay u ogaadaan meesha uu degayo. Waxaa la ogaaday inuu degay Hotel Al Bustan Rotana
warkaasi si degdeg ah ayuu u gaaray kooxda intiisa kale. Laba ka mid ah kooxda waxay gudaha u galeen hoteelka iyagoo ku labisan dharka ciyaaraha tenniska, waxayna iska dhigeen inay yihiin ciyaartooy ama dad jimicsi u socda. Waxayna raaceen liftigii uu Maxamuud saarnaa isagoo wata shaqaalaha hoteelka oo tusinaya qolka 230, waana qolkii uu degayay. Markii ay ogaadeen nambarka qolka, Peter wuxuu telefoon ku buukin garaystay hoteelka wuxuuna qabsaday qolka 237 kaas oo ku dhowaa qolka Maxamuud. Isla markiiba wuxuu sidoo kale qabsaday tigidh safar ah oo u socday magaalada Munich ee Jarmalka si uu uga baxo isla maalintaas. Kadibna Jill, Kevin iyo Peter waxay dhammaantood yimaadeen hoteelka. Jill waxay xiratay timo macmal ah, saddexdoodii waxay galeen qolka 237 waxayna bilaabeen inay si dhow u fiirsadaan dhaqdhaqaaqa Maxamuud iyagoo loo marayo indha-indhaynta albaabka qolka. Saacaddu markay ahayd 6:15 fiidnimo, labo kale oo ka tirsan kooxda ayaa la yimid 2 boorso waxayna si toos ah u tageen qolka 237. Saacado kadib, Peter waxa uu ka baxay qolka waxa uuna aaday garoonka diyaaradaha isagoona safar u aaday Munich, taas oo caddeynaysa in shaqadiisu ay dhammaatay. Waxayna shaqadiisu ahayd kaliya inuu isku agaasimo tiibka iyo sidoo kale inuu xaqiijiyo qolka uu degayo marxuumka iyo in kooxda oo diyaarsan isagoo uu safarkiisa galo. Haddaba maxaa ku jiray 2 boorso ee loogu keenay qolka? Kahor inta uusan Maxamuud dib u soo noqon hoteelka, wuxuu tagay qaybta hoose ee hoteelka si uu wax u cabo. Saacaddu markay ahayd 8:15 fiidnimo ayuu ku soo laabtay qolkiisa wuxuuna si toos ah u galay qolkiisa. Waxaa jiray 2 war oo ku saabsan sida loo helay meydkiisa. Sheekada koowaad waxay leedahay in saaxiibkii la ballansanaa uu yimid hoteelka galabnimadii 20 Janaayo wuxuuna arkay in albaabka hoteelka uu suran yahay boorka yar ee ah hay dhibin ama hay mashquulinin, wuxuuna ku celceliyay garaacista albaabka balse cidna kama furin. Markaas ayuu u yeeray mid ka mid ah shaqaalaha hoteelka waxayna albaabka ku fureen master key, halkaas ayayna ku heleen meydka Maxamuud oo sariirta yaala. Markaas ayaa la wacay booliska Dubai. Sheekada labaadna waxay leedahay in gabadha nadaafadda hoteelka ka shaqeysa ay isku dayday inay u gasho qolka balse laga furi waayay. Markii ay dhowr mar ku laalaabatayna ay wacday shaqaalaha hoteelka oo ka furay albaabka. Markii ay galeen qolka waxay isku dayeen inay toosiyaan balse waxay arkeen inuusan noolayn. Haddaba sidee dilku u dhacay? Waxaa jira 2 sheeko oo iyana kala sheegaya sida loo dilay. Midda hore waxay leedahay in qof ka tirsan Mossad oo ku labisnaa dharka qolyaha nadaafadda hoteelka oo kale markuu albaabka gargaraacay Maxamuud wuu ka furay sababtoo ah ma uusan ka shakin. Markaas ayay kooxdu gudaha u galeen waxayna bilaabeen dilkiisa. Maxamuud wuxuu caan ku ahaa inuu had iyo jeer albaabka uu ku tiirin jiray kuraas culculus si aysan cidna si sahlan u furin una gelin albaabka. taasina waxay caddeynaysaa in dilkiisu uusan fududayn. Mid labaad waxay leedahay in 2 xubnood ee horey ugu sugnaa qolka 237 ay isticmaalayeen qalab qaas ah oo lagu furo albaabka iyadoo aan la adeegsan kaarka elektarooniga ee hoteelka. Mid ka mid ah labadaasi wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay furidda albaabada oo shaqadiisu intaas ayuunba ahayd. Markii ay gudaha u galeen qolka waxay sugayeen in Maxamuud uu soo laabto. Markii Maxamuud uu galay qolka 8:23 fiidnimo, dhowr ilbiriqsi gudahood waxaa lagu duray saxonaalkaliin. Ma ahan sun, waa daawo joojinaysa dhaqdhaqaaqa murqaha oo ay ku jiraan neefta, laakiin maskaxdiisu weli way shaqaynaysay. waxna wuu arkayay wuuna maqlayay laakiin ma dhaqdhaqaaqi karin. Kadib waxay koronto uga dhajiyeen wadnihiisa, markaas ayay neefta ku celiyeen ilaa uu ka naf baxo. wax walba waxa ay u nadiifiyeen sidii marka hore uu ahaa oo kale. Qolka wuxuu u ekaaday mid caadi ah. Markii ay baxeen waxay u kala yaaceen garoomada diyaaradaha waxayna dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen. Markii meydka la helay, maamulka hoteelka wuxuu la xiriiray booliska Dubai wuxuuna boolisku la yimid dhakhtar si uu baaritaan hordhac ah u sameeyo. wuxuuna sheegay in dhimashadu ahayd mid dabiici ah, laakiin daqiiqado kadib boolisku waxa ay heleen wicitaan taleefan oo uga yimid xubno ka tirsan Xamaas kuwaas oo u sheegay in ninka dhintay uu yahay Maxamuud al-Mabxuux oo ahaa hogaamiye sare si joogto ahna loogu daba jiray isla markaana ahaa ninkii ugu doonista badnaa ee ciidamada Israa'iil ay baadi goobayeen. Markaas ayuu xaalku isbedelay waxaana la go'aamiyay in meydka loo gudbiyo dhakhtarka baaritaanada kiimikada iyo forensiga u qaabilsan booliska Dubai. baaritaanadaasi waxa ay muujiyeen in Maxamuud lagu duray maado la miiray
paralyzing substance oo ka dhigtay mid aan dhaqdhaqaaqi karin. Kadib waxay isticmaaleen barkin ay uga dabooleen wejiga si ay neefta ugu celiyaan, taas ayayna ku sheegeen sababta dhimashadiisa. Taliyihii booliska Dubai ee waqtigaas Jenaraal Dahi Khalfan ayaa si toos ah u hogaaminayay baaritaanka, waxa uuna amar ku bixiyey in la baaro dhammaan kaamiradaha hoteelka iyo garoonka diyaaradaha, waxaana la helay cadoomo muuqaal ah. Kooxda Mossad oo garoonka sugaya, kuwa daba socda Maxamuud oo gaari ka daba raacaya, labadii ragga ee dharka tenniska ku labisnaa oo la fuulaya laftiga Maxamuud oo raacay, kaamiradaha dabaqa labaad meesha uu qolku ahaa oo muujinaya 2 qof oo ka baxaya qolka 237 kuna galaya qolka 230. Markaas ayaa la xaqiijiyey in sheekadii labaad ay sheegaysay in albaabka si xirfadaysan loo furay ay tahay mid runta ah. Waxaa la baaray baasaboorada 11 qof oo kooxda ka tirsaneed, waxaana la xaqiijiyey in dhammaan magacyadooda aysanba ka diiwaan gashanayn dalalkii baasabooradaasi ay sheeganayeen: UK, Ireland, Australia, Faransa iyo Germany. Tani waxay muujisay in dhammaan baasabooradaasi ay ahaayeen been abuur. Wadamadii laga sheegay baasabooradaasi, gaar ahaan UK oo 6 baasaboor laga keenay, waxay ku eedeeyeen Mossad inay jabsatay nidaamkooda. UK waxay musaafurisay diblomaasiyiin Israa'iiliyiin ah oo London joogay. Wadamo kale oo reer Yurub ahna sidoo kale waxay qaadeen tallaabo taas la mid ah. Ugu dambeyn, booliska Dubai waxa ay shaaciyeen 11 qof oo la tuhunsan yahay inay ka qayb qaateen dilka, waxayna baahiyeen sawiradooda, waxayna sidoo kale xaqiijiyeen in tan aysan ahayn markii ugu horeysay ee Maxamuud lagu basaaso Dubai. Dhowr bilood ka hor dilkiisa waxaa jiray koox kale oo si qarsoodi ah ula socotay, waxaana sidoo kale la ogaaday in markii hore la isku dayay in Maxamuud lagu dilo sun lagu daray cabitaan, taasoo la siiyey mar uu safar ku yimid, balse suntaasi si dhaqso ah uma aysan gelin jirkiisa oo waa laga daweeyey, waxa uuna si dib yar uga bogsaday markii uu dib ugu laabtay Dimashq. Inkastoo Israa'iil ay markii hore iska fogeysay dilka, haddana dhowr maalmood kadib jaraa'idkooda ayaa si bareer ah u sheegay in Mossad ay guul weyn ka gaartay dilkii Maxamuud al-Mabxuux, waxaana la sheegay in madaxda sare ee Mossad ay aad ugu farxeen markii warka dilka ah la xaqiijiyey. Maxamuud al-Mabxuux wuxuu ahaa geesi reer Falastiin ah, waxa uuna ku baxay gacanta Mossad, waxaana u fududeeyey 2 nin oo Falastiiniyiin ah oo ahaa basaasiin u shaqeeya Mossad. Iyaga ayaana helay xogta xilliga uu baxayo, sababta uu u baxayo iyo sidoo kale xilligaasi inuu baxayay ilaala la'aan. Ugu dambeyn, Maxamuud al-Mabxuux wuxuu ahaa shaqsigii ay Mossad dishay iyadoo isticmaalaysa ciidankii ugu badnaa, sidii inay la dagaalayaan wadan oo dhan oo kale. Maxamuud al-Mabxuux waxa uu geeriyooday 20kii bishii January 2010. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. Waxa uu ahaa shahiid ka mid ah geesiyadii reer Falastiin ee ku baxay gacanta cadowga, isagoo u shaqeynaya dadka reer Falastiin. Waa mahadsantahay haddii aad meeshaan la soo gaartay. Fadlan sheergale saaxiibada la wadaag. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir. Haddii aad jeceshahay in sheekooyin sirdoon oo kuwan oo kala ah soo gudbinana qaybta commentiga nagula wadaag.